السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waa idin salaamay meel kastoo adduunka joogtaan. magacayga waa Najiib, ku soo dhawaada YouTube-kayga Najiib Yare Official. maantay waxa ka faaloonaynaa heesta cusub ee soo qaaday Nimca Habi ama Habo Nimca Habi. heesta way qaraxday dhamaatay waa ognahay. kelmadda kale ee adduunka oo dhan ka qaraxda ma taqaana waa kelmadda habo. cadaanka xataa waxay iska soo qorayaan habo. ma ogi waxaasay ku bilaabatay habo, laakiin heesta inay challenge ku bilaabatay ka bacdi kommentiyaashaasna ay habla soo dhax gashay oo baa ka warhaya. muhiimadeena marka taas ma ahan. maanta waxa ka hadlaynaa muhiimadda aan saaka inta ku fikiray kaamiradan hor imaada waxay taa ma taqaana. waxa arkay dhalinyaro badan oo reaction ka sameynaysa heestan way qaraxday adduunka taabatay. been ma ahan, xataa waxaan soo qaatay joornaalo TV-yo aan weligood lagu soo qorin magaca Soomaali. runta taas magaca Soomaali weligood laguma soo qorin. xataa haddii aan sii baaray oo galay Soomaali ah ku qoray wax Soomaaliya waxa ugu horeyso heestaas iyo sababaha ay ku qaraxday oo looga faaloonayo. marka asxaabay, muhiimadda videogan amaanta u duubaya raba inaan dhamaatiin in la wadaago. haddaba waxaan rabaa inaan wax yar u sheego qof kasta oo Soomaaliya oo YouTube isticmaalo. aniga waxa YouTube soo bilaabay 2016 ilaa hadda waa ku jiraa. ma dhihi karo dhammaan waxa asxaabnahay Soomaalida YouTube isticmaasha ama media ku jirto, laakiin marka waxa dhihi karaa haafkooda. waxa isku baranay sabab badan oo la xiriira kaamirooyinka, sabab badan oo la xiriira editingka, sabab badan oo YouTube-ka ku saabsan. haddaba isbarasho baana dhaxmarta dhamaantooda. marka ku dhahay dhamaantood waa isnaqaanaa. isbarashaan dhaxmarto qaab asxaab isku fiicanaa noqonaa. wadanka xa joogaan, qurbaha kale xa kala joogaan, Sweden taa la joogaan, laakiin dhammaantood hal fikir ka wada sameeyeen. halkaas fikirna wuxuu yahay hadaa waxaan sameeyo YouTube-kayga oo kala kaca, hadaa saan ka yeelo YouTube-kayga saan noqonaa, hadaa saan noqoto views hela. way jiraan shakhsiyaad badan aan si fiican ula hadlay oo sida videogan hadarta aan duubayo kaleete iyo kelmadahan aan soo wato aan wax ugu dhaadhiciyay, laakiin dadkoo dhan isku mid maaha. dadkoo dhanna isku si wax ma fahmaan. haddaba maxay tahay waxa aan rabo marka inaan dhalinyarada kaleete aanan u sheegin ama aan is aqoonin ama inta isnaqaano ay mar kale iga fahmaan, ama qof kasta oo Soomaaliya oo media galaayo oo maanta fahmo. dhammaanteen maadaama ay fikirkeena noqotay haddii qof lagu dhago, haddii saan wax laga yeelo YouTube-ka kala kacayo. meel yaraa rabaa marka inaad dhammaanteen wax in ka tuso. haddii maanta oo qof intuu soo qaawiyo kaamiro soo hor istaago oo dhaho oo ka baxo, qof walba videoga soo rabo inuu soo fiirsado. qof walba wuxuu isweydiinaa qofka muxuu isku qaawiyay. YouTube-kaas dadka dhan way soo booqanayaan, videogaas way share gareynayaan. waxay u arkaan falaad ah, dheedheel ah. laakiin qofkaas muhiimkiisa maxay tahay? wuxuu rabaa in la barto, wuxuu rabaa in YouTube-kiisa la soo booqdo, laakiin ma ku fikiraayo miyaa qofka okay halkan video maantay saasa sameeyay, laakiin beritoole maxaa u baahan tahay inaad samayso si isla videoga uu kugu kala kaco, si isla tayada ee isku lahaato. waa inaad samaysaa isla videoga kaleete. laakiin waxay ku dhahayaan marka video fiican sameey ma la daawanayo. yes, ma lagu daawanayo because shalay waxaad duubtay video iswaalaysid, maantana waxaad duubtay video wax kale ka hadlaysid, mowduuc kale wadan kale ku saabsan ka hadlaysid. so dadka waxay kugu barteen isqaawin, iswaal, dad la dagaal. so noloshaada inta ka dhiman waa inaad saas ku socotaa. haddaba hadda ka fikir waxa aad rabtid maxaa waaye inay kugu bartaan dadka. waxa adiga aad rabtid inay inta maanta ka daawadaan, birina ay ka daawadaan, saadamana ka daawadaan maxay tahay? heesta gabadha ay qaad Soomaalida ay Nimca Habi qaabkii u kala kacday waa qaab adduunka dhan soo jiitay. marka waxaan meediyaha la dhahayo wax ku saleysan ma ahan waa nasiib. okay, heesta waxay soo baxday 5 sano ka hor, maantayna kala kacday. waa nasiib. soo iswaalina waxaan waa media. dabacsano jiro muxuu dhaama taqaanaa kamarada waa lagu waashaa, annaga kaaga horeynay ha ku waalana. saas waxa dhahay Sheekh Dabacsar. marka aan waxa dhaama taqaanaa war dhalinyaro kamarada waa lagu waashaa ha ku waalanayo, waxaan anaga kaga horeynay naga wareesta. wax soo dhammaantiina waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawateen videogan. waxaan noo balama videoga xiga iyo kulanti dambe oo wacan oo wanaagsan. muhiimka waxay tahay waa intaas. mac salaamo.